Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan Soomaaliya meel walba oo dunida daafeeda ka joogtaan. Waa mar kale barnaamijyadeeni. Maanta waxaan idin wadaa qiso aad iyo aad u murug badan, taasi oo la magac baxday Kala Warla Wiilkan iyo Hooyadii. Haddaba intaadan muuqaalkan daawashadiisa u gudagelin, waxaan kaa codsanayaa inaad YouTube channelka subscribe saarto, aadna sii share geliso. Daawasho wacan. Wiil yar oo agoon ah ayaa hooyadii waxay lahayd il kaliya, taasoo ku abuurtay cuqdad. Wiilkan ayaa waxa uu wax ka baran jiray mid ka mid ah iskuulada dalka South Africa. Iskuulkaas ay hooyadii ku iibin jirtay jalaato si ay ugu soo saarto biilka gurigooda iyo waxbarashada inankeeda. Wiilkan ayaa aad u karaha inuu arko muuqaalka hooyadii marka ay iskuulka ku dhex iibinayso jalaatada. Maalin maalmaha ka mid ah oo uu wiilkii galay imtixaankii sanad dugsiyeedkii, ayaa hooyadii ugu soo gashay fasalkii uu iskuulka ka dhiganayay si ay nusaac u siiso wiilkeedii, niyaddan ugu dhisto. Balse nasiib darro, aad ayaa uga cadhooday isaga oo u arkayay in carruurta kale ay wax wada dhigtaan ku caayaan imaanshaha hooyadii iyo sida ay u eg tahay. Isagoo ku eegay eegmo aad u foolxun oo aan raaligelin hooyadii markii ay ka tagtay, ayaa qaar ka mid ah ardayda iskuulka qosol la dhaceen, iyadoo qaar ka mid ah ardaydu ku yiraahdeen hooyadaa way cawaran tahay. Taas oo aad ugu sii xanaajisay. Waxa uu qaaday cadho iyo walbahaar ku aadanaa muuqaalka hooyadii, isagoo ka doorbidi jiray in uu arko hooyadii inay mar uun dhimato oo ay adduunka ka tagto si aan loogu caayin. Waxa uu sidoo kale ku fikiray in uu dalka isaga tago oo uu ka boqolo si uu ugu dheeraado muuqaalka hooyadii. Waxa uu dhammaystay waxbarashadii dugsiga sare, isagoo nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo ardayda deeq waxbarasho dibadda loogu qaadayay. Waxa uu tegay isaga oo hooyadii u sheegay in uu waxbarasho dibadda u tagayo. Intii uu maqnaa hal mar, hooyadii ma uusan soo wicin. Waxa uu soo dhammaystay waxbarashadiisii dibadda. Waxa uu nasiib u yeeshay inuu shaqo ka helay aad ka shaqaysa dalka oo uu dib ugu soo laabtay. Waa uu guursaday, allana waxa uu ugu deeqay carruur iyo guri farxadeed. Waxa uu is ilowsiinayay noloshiisii hore iyo xasuustii hooyadii dhashay oo aan dib u jilaacan, halka iyo meesha ay ku dambeysay. Intii uu yimid oo dhan. Dhanka kale, hooyadii ayaa aad ugu murugaynayd halka uu wiilkeedii ka dhacay, balse nasiib wanaag sidii ay u raadinaysay ayay maalin maalmaha ka mid ah soo ogaatay in wiilkeedii uu joogo dalka, heer sarena ka gaaray nolosha dalka ay ku nool yihiin, guursaday, carruurna uu leeyahay, iyada oo weliba soo heshay halka uu magaaladu ka degan yahay. Haddaba la soco qaybta labaad ee qisadan murugada badani.